qof kasta oo aadama ah marka uu maqlo ereyga jacayl ama uu arko cid jacayl iyo kalgacal wadaagaysa waxaa maskaxdiisa ku soo dhacda wadne. xitaa adigani muuqaalka daawanayo haddii aan ku weydiiyo su'aal ah halkee wax laga jeclaadaa, waxaan huba inaad igu jawaabayso qalbiga, weliba adigoo tilmaamayo booska uu wadnaha kaaga yaalo. haddaba sidee lagu helay astaanta jacaylka ee wadnaha? yayna tahay ciddii ugu horraysay adeegsata astaanta wadnaha? sideese ku timid? intaan u gudagelin ka jawaabidda su-aalahani iyo su-aalo badan oo maskaxdaada ka guuxaayo, waxaan kaa codsanaya inaad muuqaalkani laagarayso si uu dad badan u gaaro muuqaalka. muddo laga joogo qarniyo badan ayaa waxaa jiray wiil dhalinyaro ah oo reer faqiir ahaa ka dhashay iyo gabareer hantiile ahi dhalay oo ay daris ahaayeen. carriga ay ku noolaayeen waxa ay ahayd meel saxara oo ka tirsan dhulka carabeed. maalin maalmaha ka mid a reerkii hantiilaha ayaa aroos yeeshtay. kadib dadkii lagu casuumay ayuu wiilkani ka mid noqday. markuu soo garaacay ganjeelka guriga ayuu la kulmay gashaanti dheg iyo dhabanba alle ku manaystay. inkastoo aanay isku leefal ahayn, haddana ragdamac iyo dacarba midna kama dhammaadee inantii ayuu calmaday. markii uu la wadaagay jacaylkii uu u qabay inay suurtagal tahay inay xidhiir wadaagaan, inantii wiilkii waxa ay ku xirtay hal shardi oo hadduu sameeyo ay suurtagal tahay in xidhiirkiisa ay aqbasho. shardigaasi waxa uu ahaa inuu keeno ubax ka turjumayo jacaylka uu u qaaday. wiilkii waxa uu go'aansaday inuu raadiyo ubaxii uu ku heli lahaa jacaylkiisa. xilligaa oo abaar ahayd iyo saxarihii uu ku noolaa ayaa u saamixi waayey inuu horay u soo helo ubaxii loo diray. maalin maalmaha ka mid a ayaa isagoo cidlo iyo daal la daalaadhacayo, ilmadii jacaylkuna ay dhabanadiisu dul qubanayso, ayaa waxaa arkay shimbir. shimbirkii ayaa ka naxay wiilkani weydiiyey waxaa helay. wiilkii waxa uu bilaabay inuu shimbirkii la wadaago dareenkii murugada lahaa. shimbirkii ayaa go'aansaday inuu naftiisa u huro jacaylka wiilka hayay. kadib intuu duula ayuu soo qaaday caleen qalalan oo dabayluhu sideen. intaa kadib wuxuu afkiisa dhubnaa ku dalooliyey halkii wadnihiisa ku beegnayd. dhiiggii ka daatay ayaa ku duldhacay caleentii isagoo u samaysmay qaabka wadnaha jacaylka ee maanta la yaqaan. kadib wuxuu u dhiibay wiilkii si uu u geeyo gabadhii uu jeclaa. wiilkii marka uu soo qaaday ayuu gabadhii oo nin kale la joogo u yimid. gabadhii ayaa u sheegtay wiilkii inay heshay mid ka qurux iyo maal badan. guuldaradii ayuu wiilkii la soo noqday isagoo ka soo wardoonay shimbirkii. markii uu meesha yimid ayuu arkay shimbirkii oo dhigbaxay, naftiina ay ka baxday. wiilkii markuu soo dul istaagay shimbirkii oo dhintay ayaa isna ku nafbaxay halkaa. laga soo bilaabo waagaasi astaantani waxa ay noqotay tan keliya ay loo adeegsado jacaylka laguna xuso. haddaba adiga horay uma maqashay sida lagu helay astaanta jacaylka wadnaha? haddii aad maqashay sheeko ka duwan midani, xagga komitiga nagula wadaag. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.